السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان بداودياش قيمها عليه أنه هو كحريرنو markale iyo barnaamijkii arrimaha bulshada oo sida aad la socotaan aanu ku soo qaadno waxyaabaha kala duwan iyo heerarka kala duwan ee Soomaalida ayaan idin soo gudbinaynaa. barnaamijka maanta ayaa ku saabsan horumarka ay sameeyeen gobolada iyo guud ahaan dalka Soomaaliya. burburkii dawladda dhexe ee Soomaaliya kadib Soomaaliya waxa ay noqotay ninbo nafta nabiga ummadda. qofba meeshuu aadi karo aaday, qofba meeshuu ordi karo uu orday, qof walba gobolku ka yimid oo ay dhici kartay inaan weliga arag ayuu tagay. gobol walba iyo qof walbana sidii uu wax u qabsado ay arintii noqotay. dawlad goboleedka Puntland oo kamid ah dawlad goboleedyada Soomaaliya kuna jirta kuwa ugu cadcad ee la dhihi karo waxbay qabteen oo dalkooda iyo dadkooda u qabteen ayaa kamid ahayd dawlad goboleedyada asaasmay kadib dhibaatadii Soomaaliya iyo kala guurkii kala tagi ka dhacay. dawlad goboleedka Puntland ayaa waxa la yiraahdaa waxa ay ugu suuro gashay inay qabsadaan wax dadkoodii intellectualiska amaba wax yaqaanay oo ku soo noqday dalkooda. maanta barnaamijkayaga ayaa waxa uu ku saabsan yahay waraysi guud ahaanba aanu la yeelan doono wasiirka beeraha ee dawlad goboleedka Puntland Engineer Maxamuud Xaaji Saalax. Engineer Maxamuud Xaaji Saalax waxa uu ka tirsanaa dhalinyaradii markii dawladda dhexe ay dhacaysay Soomaaliya waxbarashada heerka sare ka gaaray Soomaaliyana ka soo shaqeeyay. dhibaatadii ka bacdina wuxuu ka mid ahaa dadkii dibadaha u cararay kadibna ku soo noqday dalkiisa si uu wax uga bedelo welina uu taagan yahay. ku soo dhaw barnaamijka Engineer. waa mahadsantahay waan dhawahay. bal horta waxaan rabnaa in aad iskeen barto oo dadka isbarto waa qofma Engineer Maxamuud Xaaji Saalax xagee ku dhashay, xagee wax ku bartay, waxbarashooyinkiisa iyo heerarka ilaa ugu dambeyn heerka uu maanta taagan yahay. mar labada ku mahad celinaya jaaniskaad siisay inaan kaga warbixiyo stuudiyaha si ay dadka Soomaalida intooda badan ay u dhageystaan. marka ugu horeyso haddii aan taariikh nololeedkayga ka hadlo waxaan ku dhashay magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe. waxaan ku barbaaray Muqdisho oo aan dugsigaygii dhexe iyo dugsigaygii sare iyo jaamacadaba aan ku dhameeyay. waxaan ka baxay jaamacadda Civil Engineering Gahayr. waxaan waxbarasho u aaday anigoo shaqo ka bilaabay wasaaradda beeraha. waxaan takhasus u aaday inaan soo diyaariyo irrigation engineering waddanka Talyaaniga. waxbarashadii meeshaasaan ku soo dhamaystay waddanka Talyaaniga. dibna waxaan ugu soo noqday departmentiga aan ka tirsanaa oo ahaa Water and Land oo ah departmenti ka tirsan wasaaradda beeraha. dhowr bilood kadib markii aan waddanka dib ugu soo noqday waxaan madax ka noqday mashruuc markaa weynaa oo mashruucii ugu weynaa aan oran karayo waqtigaasi Africa oo USAID-ku ay fangareynayeen. wuxuuna ahaa Shabeelle Water Management. waxaan ka ahaa project leader mashruucaasi. adigu bilooyin kadib waxaa dhacday dawladdii Maxamed Siyaad Barre waxay noqotay inaan waddankii sii joogo walow aan filaynay kollay inuu isbedel imaan doono laakiin xaaladdu dhan kale ay wareegtay. waxay noqotay sida adigu sheegtay ninbo nafta nabiga ummadda. dibba waxaan ugu noqonnay oo aanu qaxootinimo ka bilownay wadamada runtii gacanta inoo fidiyay. waxaan imid dalka Canada oo run ahaantii waxbarashadii maan joojinay halkaan ka sii waday. waxaan takhasus ku qaatay oo aan runtii ku sameeyay diploma postgraduate education ah information technology. kadib kuma aan harin halkaas waana shaqayn jiray. waxaan halkaa ka sii waday waxbarashadeedii. waxaan ku qaatay dalka Mareykanka shahaadadii loo yaqaano MBA Master of Business Administration. waxaa kaloo jira anigu aqoontii aan u arkayo inay haba yaraatay aysan ahayn mid istaagi karta ama dhammaan karin inaan sameeyay shahaadooyin kuwa ugu waaweyn mooyaane shahaadooyin fara badan oo intaa ka badan oo ay u badan yihiin certification. marka la isku daro shahaadooyinkaas waxay noqonayaan 11 shahaadood. marka intaas sameeyay yaan waxaan doorbiday bal inaan dalkayga iyo dadkayga dib ugu noqdo. iina suurta gashay alxamdulillah. waxaana taa ii suurtageliyay dowladda Puntland oo markaa iyadu siyaasadeedu ku fadhisay bal in dadka
aqoonta leh ee u dhashay sheeganayana inay yihiin dad reer Puntland ay dib wadanka ugu soo noqdaan si ay wax uga qabtaan taa iyada waa ay suurta gashay jaaniska isaga ah waxaan helay si aan wadankayga ugu soo noqdo wixii aqoontayda ah iyo karaamadayda ah aan anigu door bidaayo inaan dib ugu celin karay wadankayga inaan imaado dib ugu celiyo taa iyadana runtii mahad waxaan u jeedinayaa maamulka markaa jira ee suurta geliyay in aqoon-yahanadu dibadda dalka dibadda uga maqan inay dib ugu soo noqdaan si aqoontooda ay ugu faa'iideeyaan dalka iyo dadkaba taariikhdaydu waa sidaas haddana waxaan wasiirka ahay wasaaradda beeraha ee dowladda Puntland injineer waa mahadsan tahay haddaan kula kaftamo markii Soomaaliya la joogay looma haysan Puntland wax ka bixi karaa oo goboladaas macdano kale iyo badda iyo siyaabo kale looga faa'iideysto laakiin Soomaalida waxa ku quflay gobolada qaarna ay wax ka bixi karaan gobolada qaarna aan waxba ka bixi karin waxaad naga siisaa marka kolla waxaa jirta ma aan fikirka la qabay haddii wax walba oo la raadiyo waa la gaaraa wax walba oo qofku isku dayo inuu qabtan waa qabtaa bal waxoogaa waxaad waayay aragnimo nagsaa filimkan aan hadda aragnay oo na tusahayay in Puntland beeraha saas u eg iyo wax soo saarkaas ay yeelan karto sida ay idinku suura gashay alxamdulillah horta waxa way wasaa sheegtay qof walba markuu dadaalo waa gaaraa waxaana weeyaan waxa loo baahan yahay marka ugu horeyso inuu qofku aamino iyo kalsooni waxaan ku sheegayaa waa runta markii dowladda Soomaaliya ay jidla dib ugu noqdo dhulka Soomaaliya wuxuu u kala qaybsanaa laba qaybood qaybna waxa la oran jiray labada webi Shabeelle iyo Jubbo oo runtii lagu tiriyo dhul beereedka Soomaaliya qaybna waxa la oran jiray range area oo lagu tiriyo inay yihiin daaqsimaad oo dowladda Maxamed Siyaad Barre arintaasi u kala goysay laakiin haddii mar Puntland la isugu soo aruuray waxa qasab noqotay lafahanteeduna daaqsimaadka kaliya in laan loo joojinay bal beeraha dhanka beerahana la isku dayo 20 sanadood Soomaaliya ay burbursaneed iyo in ka badanba Puntland waxay aad ugu isku taxalujisay runtii inay dhanka beeraha ay at least ku talaabsato wax horumar ah sanadkii ugu dambeeyayna runtii horumar la taaban karo oo waliba ah inta xafiiska anigu aan joogay ayaa lagu talaabsaday waxaan u maleynayaa in caalamka inta danaysa horumarka Puntland ama Soomaaliyaba inaysan ka qarsoonayn dahna aysan ka saarnay arinta iyada waxaan u arkaa dhul beereed baaxad leh inay leedahay Puntland waxna ka bixi karaan ciidda ugu wanaagsan ee Soomaaliya inay leedahay arqabada kaliya markaa hortaagana ay tahay biyaha taa iyada la fahanteeduna waa mid hadda anaga miiska inoo saaran inaanu wax ka qabanno arrimaha la xiriira xagga biyaha dhowr jeer baan ka hadlay idaacadaha dadkana la hadlay in aanu sameyn doono small dams oo yar yar ah si loo kaydiyo biyaha ku dhamaanaya badda dadkuna iyo xooluhuna ay uga faa'iideystaan taa waxay noqon doontaa in productionka Puntland xagga dhinaca beeraha uu kor u kici doono waxaana qabaa taa mid la mid ah inay kaga dayan doonaan inta kale ee Soomaalida ah waxaana weeyaa guul runtii laga gaaray dhanka beeraha ee Puntland waxaana aan hadda ka hor runtii kaga dhawaajiyay oo aan kaga hadlay idaacadaha sanadka aynu soo dhaafnay oo aanu hadda ku jirnaan waraahde xawliga ay ku socoto dhanka beeraha waxaanu qiyaasaynaa 2025 inay Puntland isku filaasho ka gaari doonto dhanka qudaarta runtii hadda qaarkood laga keeno Muqdisho iyo Southka waxaan rabaa inaan ku weydiiyo hadda sida aad ku beertaan biyaha ma waxaad sugtaan kuwa roobka xilliga roobka oo ay dhici karto markuu rabo inuu baaqado si hadda see ku sameeysan beeraha dadku waxa ay qotaan ceelal runtii ha noqdo ama 6 mitir ilaa iyo 12 mitir oo ceel ah waxa ay saaraan water pump ama pump yar oo irrigation ah sidaas ay wax ku beereen runtiina waa arin horumar ay ka gaareen waxaana aaminsanahay haddii la tacaalo arinta oo irrigation infrastructure loo sameeyo iyada la fahanteeduna inay aad iyo aad wax production kor u kacay laakiin so far hadda dadku waxay isticmaalaan biyahaasi iyo kuwa cirka ka yimaado oo roobka inuu naqaano la fahantooduna aad bay isticmaalaan laakiin waxa aad loo isticmaalaa ceelasha gacanta lagu qabo waxa kamid ah waxyaabaha hadda beerihiina ka soo go'a baahida intee la eg bay dabooli karaan oo Puntland gobolada Puntland haddaan ku sheego waxaan u maleynayaa dad badan inaysan rumaysan karin Puntland xagga qudaarta runtii waxaan oran karayaa markaan ku leeyahay waa iskaga filaatay waxa la yaabaa dad badan inaysan rumaysan karin waxa u dhiman Puntland oo kaliya
waa liinta bambeelmada oo aan wali test garayn cambaha iyo sida aad filinka ka arkaysaanba cambaha iyo muuskuna waa caadi waxaan rajaynaynaa for the coming for 6 years inay noqon doonto Puntland dhankaasna iskaga filaan doonto oo ah aan kaga hadlayo mooska iyo cambaha liin bambeelmada wali baan test garayn briskana waa noo dhiman yahay waxaan u maleynayaa inta kale inaanu already test garaynay kuna tijaabinay dhulka beeraha ee Puntland iyaduna ay socdaan dadaalo runtii iskaga filaan doonaan dhan kastaba haddii noqonaan dhinaca beeraha marka ka soo qaad qudaarahan iyo waxaan ahada filimkan aan ka fiirsanay ma dad ku takhasusay baa u sheegay habka loo beero dadka mise iyaga iska garto jaantaa rogantii ugu baxday waxa jira casharo aad siiseen nidaamyo aad u sheegteen see ku keenay reer Puntland may aqoon beeraha markii hore marka see idinku suura gashay ala wasiir jaalayaal waxaan jeclahay beertan waa saytuun waa babay waa muxuu ahaa liin waa khudaar kala nooc yaanyo كاروتو